kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni shanta su'aalood isbuuc kasta aad ka daawataan telefishinka SBTV. barnaamijkan inta badan waxaynu diiradda ka saarnaa dhibaatooyinka loo geystay dadka Soomaali jareerta ama Soomaali bantuida ku nool gudaha dalka Soomaaliya. barnaamijkan isbuucla ahaa maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa 5 su'aal oo ahaa sida jadwalka barnaamijka. su'aasha ugu horeysa ee maanta ayaa waxa ay tahay maalmahan waxa warar hoosaad ay sheegayaan in magaalada Muqdisho soo galayaan hub casri ah oo beelo gaar ah ay keensanayso oo ka soo horjeeda dawladda. bal adiga Soomaali bantuuga ama jareerweynaha ah haddii dagaal bilowdo ma qaxi doontaa mise difaac ayaad geli doontaa? su'aasha labaad, haddaad tahay bantuu ama jareer, geeleyda waxay ku dhahaan looma ooyaan iyo looma aare, bal ma is weydiisay sababta magacyada lagugu bixiyey oo ma ku fikirtay in aad u heeliso qof walaalkaaga jareera hortaada lagu dhibaateyn oo aad u heelin doontid? waayo geeleyda ayaa lagu arkaa qof qaxooti ah haddana laandheeranimo sheeganayo, balse adiga maxaa ku diiday in aad sheegatay? su'aasha saddexaad, Soomaaliya waxaa laga awaalmariyey dadka dalka iyo dadkuba dulmi u geysta, oo haddaad wax tar u leedahay dalka iyo dadka waxaa tahay laangaab, bal adiga laangaab inaad ahaatid ma rabtaa mise laandheere? su'aasha afraad, qowmiyadda bantuuda ama jareerta waa dadka asal ahaantii Soomaaliya iska leh oo waa dhaladkii Soomaaliya, balse dulmi dartiis ay u noqdeen second class citizen oo la dhahaa Soomaali ma tihid. bal haddii adag lagugu dhahayo Soomaali ma tihid, anno cunugaaga maxaa la dhihi doonaa? su'aasha shanaad ee toddobaadkan ayaa waxa markaasi su'aal aan ku weydiin doonaa oo kusaysa barnaamijkan daawadayaasha barnaamijkan oo inta badan aysan ka soo falcelinin barnaamijka su'aalaha aan ku soo weydiinayno. toddobaadkan waxaan weydiin doonaa sida ay jecel yihiin ma anaga ka gaabanay barnaamijkan. intaas aynu ku soo afmareen barnaamijkii shanta su'aal ee aad kala socoteen telefishinka SBTV. barnaamijkan inta badan waxaad daawataan maalmaha Sabtida iyo Axadda. haddii uu Sabtida soo geli waayo waxaa si toos ah u daawan doontaan maalinta Axadda. barnaamijkan wuxuu ahaan doonaa mid joogto ah oo soo geli doona maalmaha Sabtida iyo Axadda. intaan barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.